labaad sharafta leh waad salaamantihiin maanta runtii sharaf weyn bay noo tahay mas'uuliyiinta warbixinta la siisay gudoomiye ku-xigeenka iyo marwana waa u mahadcelinaynaa warbixinta ay noo keeneen arrinta walaasheen maaragtay laga hadlaayay oo musharaxnimada ah arrintaas arrin aad iyo aad qiimo weyn oo leh Soomaali ahaan walaalaha labaad sharafta leh himmiga sare qofka bani'aadamka inuu lahaado himmigiisa inuu sareeyo dadnimo ay ka mid tahay walaasheen markay aragtay gabdho ayada maaragtay ama la mid ah oo Afrika ah oo wada taagan markay aragtay yay codsigeeda gurbiisatay waana la soo dhaweeyay meeshay soo gaarteen waa dareemi kartiin waxay soo maray waxay u soo gudubtay 40 xubnaad oo maaragtay isku soo haray yani caalamka runtii wuxuu noo hayaa yani kalgacal badan noo haya xaqiiqdii Soomaaliya waxa adduunka wanaagsan danaynayaan Soomaaliya levelkeeda inay soo buuxiso ya adduunka naga sugayaan waxay ka mid tahay lagaaga isku dayday walaasheeni yani Soomaaliya oo maaragtay levelkeeda soo buuxisay bay ka mid tahay ma aha kursi hal qof raadinay ma aha barnaamijkan waa kursi Soomaali raadinayso adduunka waxaan ku jirnaa 7 baarlamaan xuban ka nahay waad ogtihiin IBU hadda loo sharaxay ku jirnaa islaamkan ku jirnaa afrikaan ku jirnaa waxaan ku jirnaa igadan ku jirnaa baarlamaanka dhexaadka adduunkan ku jirnaa baarlamaanka isku darka oo joint parliament la yiraahdo Europe iyo Caribbean iyo Africa kulli ku jiraan ku jirnaa intaas oo baarlamaan ayaan huban ka nahay wili gudoomiye kama noqon aniga intaas oo baarlamaan ah waxaan rajaynaynaa biyaajada inay noqoto biyaajada Soomaaliya caalamka hoggaan ku qaban lahayd inay noqoto maadaama walaasheen arrintaas ku fikirtay anigu waxa looga baahan yahay si aan kala har lahayn inaan arrintaas ugu guntulo dawladeena guud ahaan baarlamaanka hadda qiibta aqalka sare naga maqan maadaama anagu hadlayna soo gaaray gudoomiyaha iyo xubnaha aqalka sare waa la wadaagi doonaa baarlamaanka Soomaaliyeed ay golaha shacabka kaligood ma aha waxa martay gabadheena matalayso marka Ilaahay ku guulay arrintaas musharaxnimada ay tahay baarlamaanka oo dhan ay matalaysaa aqalka sare ila isku daray iyo golaha shacabka aygan walaalaheen waa la wadaagi doonaa haddii aan leeyahay adduunka xiriirkeena ma xuma IBU ha noqotay guud ahaan Afrika ha noqotay jaamacad laba ha noqotay midowga Yurub ha noqotay yani dawladaha waaweyn maaragtay runtii adduunka oo dhan Mareykan iyo dawladaha waaweyn hata xiriirkeena ma xuma yani marka waxaan looga baahan yahay dadaal aan kala har lahayn waxaa loo baahan yahay tasiilada loo baahan doonaa tasiilaadkeena dawladeena iyo dhammaan si guud aan ku tashan doonaa arrintan issue-gan waa issue heer qaran ah oo national ah saas arrintan ay tahay ma aha yani musharaxnimadii hore aan maaragtay dhaxdeen ahayd waa ka duwan tahay musharaxnimada maanta noo taagan marka arrintaas aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sidaad u soo dhaweyseen waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto baarlamaankeena 12aad intuu jiray muddadan kooban oo jiray laba shiro oo caalami ah ayaan ka qayb galay aniga ilaahay baan waafajiyay fursadaan la kulay lamada biyaaji ilaahay na siiyay oo guul ah waxa ka mid ahaa shirkii ugu horeeyay Johannesburg African Parliament markaan la kulmay IBU Ban Afrika markaan ka qayb galay doorasho meesha ka socotay xogeyaasha baarlamaanada ayaa waxa laga dooranay qeyb oo fulinta ka mid ah xogayeen waa ku guuleystay dadkii galay ka mid ahaa baarlamaanka labaad haddana ka qayb galnay wuxuu ahaa baarlamaankii maaragtay jaamacatul arab waan ugu qayb galnay maaragtay Iraq doorasho meesha ka socotay adan ilaahay markii xogeyaasha hadda la dooranay qeybta fulinta la dooranay xogayeen waa ku guuleystay waa ka mid noqday labada biyaajib labadaas shir caalami ah oo marka aan ahayn shirar hoos aan ahayn labadaas shir aniga ka qayb galay labadaas shir ilaahay waxaa noogu guuleeyay xogayeen inuu ka mid noqdo fulinta kii saddexaad oo hadda qof naga mid ah musharax nagado waa marwo Hilbaan marwo Hilbaanada badan waa yaqaanaan waa qof aqoon-yahan ah waa gabar degan loo luqadood ku hadlayso yani aqoon ahaan dhisan dadna maxaana dhisan weeye marka maadaama ay sidaa tahay waa qof matali karo baarlamaankeena matali karo waa Soomaali matali karo weeye gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leenahay madaxtinimada jamhuuriyadda Soomaaliya rag ay idinkaga horeeyay waxaan rabnaa ka caalamka inaad naga hormartaan idinku
gabdhahan taas guushaas inay dheliyaan waa laydinkaga baahan yahay يعني ما نقولين رجين ولي برمانة الدنك وكان كمان نقولين مركي لقى ريبو قف نقول قيب قالي محكمة العالم نيكي جوجل استي مركي لقى ريبو مركي قبلها أينا أرنتاس قول تارجع بيو نقول نيسا قودها سومالي يو نقول نيسا مركي هلا بارد الشرف تلا أرنتان إن شاء الله أنو وحنا ما هرينو عالم كوان كجدينا برمانة صاحبة النهاية كل أطيار ودرسنا وحن كأصلا دونا إن أرنتاس لنقول كعنسيو يعني كأصلا دونا برمانة صاحبة دينا ويا وحاجرة برمانة مهم وعليس قاضله أو أي أشرح حنين أرنتان مركا فرصة جبت واحد تهاي سدها ودنا أسكو صهري عالم كنتيس أصلا مشارع معها مركا دكاس إن كفى إذا يسنو برمانة إيه صاحبة الدنيا كان كلها نهاي إن أنه القلنا دولة ديرين إن أرنتاس دقاجسو دقاق التسييرات بدنا الله باهن دونا مركا هلبانة شرفت له أنا كجدونهان وحنا ما هرينو هلبانة ديرين دمانتين إن أنه القلنا هلبانة خاصة كجرو IBU كمدة ما دام معروف بدأ إليهين مده هذا قصة جرين أيضا وحن كرمنا سيجارة إن هي السوسارة أيضا تاسان كأتصنا هنا هذا دوما سنتين ما أنت مارتي أو جديد النوجوين إن مارتي أجنتك الآن مجرين سيان أخذ فرصة قصينه أردت كل ما أنت جت على الصور دقي مهم جدا نقول له هاي درات هذا نقول دقي هذا دوما سنتين فدقي أنا ما أنت الله هني هاي الله نقول هذا دوما سنتين